الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد صدوة walaalayaasha qalbiga ilaahay dartiisaan u jeclahay ma ilaawin in aan su'aal isweydiinay qaybtu dhashay qaybtii ka horreysay dhammaadkeedii su-aasha dad xasuusataan anigu waan xasuustaa ma ilaawin su-aashu waxay ahayd abubakar radiallahu tacaala can maxaa sabab muxuu ehel ugu noqday muxuu ugu qalmaa inuu nebiga kadib madaxweyne isagu noqdo su-aashaas ayaan isweydiinay su-aasha jawaabteedii hadda ayaad iga helaysaan dhowr arrimood waa la sheegaa ta koobaad abubakar wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey nebiga sal ly slam rumeeyey aaminay wuxuuna ugu ahaa ninkii ugu horreeyey ee tukaday sidaa awgeed wuu qalmaa inuu nebiga kadib madaxweyne noqdo arrinta labaad nebiga oo nool ayuu ummadda salaada tukiyuu imaam u noqday abubakar radiallahu can taasna waxay sababaysaa inuu u qalmay in uu nebiga kadib isagu khaliifa noqdo arrinta saddexaad islaantii qaybtan ka horreeyay aan kaga soo hadalnay nebiga u timaaday wuxuu ku dhahay nebigu sal ly slam haddaad aniga i weydo abubakar radiallahu can u tag saddexdaa arrimoodba waxay tooshka noogu qabanayaan in uu abubakar radiallahu can u qalmayey in uu nebiga kadib isagu ummadda madaxweyne u noqdo ayib abubakar radiallahu can imika waa imse jir markuu khaliifada qabtay abubakar imse jir ayuu ahaa saan qaybtii ugu horreysay kusoo sheegnay abubakar radiallahu can nebiga 2 sano ayuu ka yaraa sax nebigu hadduu 3 ku dhintay abubakar waa 61 soo maaha aad iyo aad dib baan inoo yara celiyo qaybtii koowaad baa lagu celiyo soo noqda hadda qaybtan aan joognaa hadda abubakar nebigu sal alla alay wasalam markuu sii dhimanayey muxuu u dhihi waayey abubakar ka dhigta khaliif isaga ayaa ahaa rajul taqiy isaga ka dhigta khaliif muxuu u dhihi waayey nebigu sal alla alay wasalam sababtoo ah xadaaradda diinta islaamka nebiga ummadda muslimiinta xadaaradooda ilaahayna subxaanahu watacaala uu ku ammaanay ayaa ah wa amruhum shuuraa baynahum markay wax go-aan ka gaadhayaan ama ay wax samaynayaan alla wuxuu dhahay subxaana watacaala wa amruhum shuuraa baynahum arrimahoodana wada tashi shuurayn intay isku yimaadaan bay ka wada niqaashaan ka wada hadlaan kadib wa amruhum shuuraa baynahum arrintaas awgeed ayuuna nebigu cidna u magacaabin oo dawaaba ummad amarkooda ku dhisan yahay shuuraa baynahum allahu akbar waana xadaarad aad u qurux badan oo inan inagayna looga horreynin inagayna imika yurubiyaanka oo kale marka erdogan oo kale ama dowlad muslim madaxweynaheedu uu faraha la soo galo dowladaha yurub way ka wada tashadaan dowladaha yurub oo dhan way isku yimaadaan way ka wada tashadaan iyagu shalay bay barteen laakiin inagu ilaahay ba subxaanahu watacaala 1400 oo sano ka hor wa amruhum shuuraa baynahum dhahay waxayni bay xadeen maanta yurub iyo america iyo dadkan siyaasadoodii waxan maaha waxay meel kale ka keeneen taynuun bay koobiyeen copy paste unbay ku socdaan meel kale kamiinan keenin copy paste weeyaan meel kale kamiinan keenin xadaaradeennun bay soo xadeen inagii garanaysaay dhexdeena waa isku direen madaxay isku kaya geliyeen xuduuda iyo xadadii madaxa la isku kan geliyey iyaguna xadaaradeeni quruxda badneed bay qaateen oo ay magaranaysaay waddankoodii systemka ka dhigteen subxaan allah marka waxay inagii naga koobiyeeyeen soomaaliduna waxay dhahaan isku dayasha dooq male waxaan u dirayaa aabayaasha macallimiinta waalidiinta waxaan leeyahay ubadkiina iyo xitaa madaxda ubadkiina dadkiina ka neefiya ha caburinina ha dhegaysta ra'yigooda wa amruhum shuuraa baynahum muxuu alla u dhahay carruurtaada la tasho markaad wax rabta inaad samayso la tasho carruurtaada waxaa laga yaabaa adoo aabbaha dhan ama hooyada dhana waxaa laga yaabaa in inankaaga yar ama inantaada yar ay kaa ra'yo qurux badnaato markaa la tasho markaad wax samayn rabto kala tasho nololahooda kala tasho guriga kala tasho adiga waxyaabaha noloshaada aad rabto la tasho xitaa xaasaska la tashada waaye xaasaska dumarka ra'yigoodu waa xikmad umu salama xikmaddii ka soo yeedhay waa tii ummadda muslimiinta oo dhan badbaadisay markuu nebigu u soo baxay inuu fatxu maka furto sulxul xudaybiya uu dhacay heshiiskii uu dhacay noqday uu rabay nebigu sal ly slam inuu noqdo maadaamuu heshiis dhacay isagoon maka aadin oo ma asxaabtii madaxa isugu galeen oo magaranaysa buuq baa meeshii ka bilaabmay umu salama
xigmadeedii aadka u quruxda badnayd eed wada garanaysaan ay ku tiri nebiga xiiro kadib way kaa daba xiiranayaan dharkana iska saar dharka xajkana iska saar way kugu dayanayaane sidii markuu sameeyey nebiga sal slam asxaabtiina way ku wada daydeen sidii baana lagu noqday xikmaddaasa lagu badbaaday marka dumarka xitaa xaasaskiina dhagaysta ra'yigooda ka wargura oo ha caburinina marka abubakar radiallahu canhu la doortay uu talada hadda qabtay taladii hadda markuu qabtay madaxweyne uu noqday uu khudbadeeyey khudbad aad u qurux badan oo cadligiisa iyo magaranaysaa wanaagga ninkaas kasoo guuxaya muujinaysa ayuu jeediyey wuxuu dhaha yaa ayuhannaas dadow aniga ayaa la ii kiin doortoo madax la iiga kiindhigay haye mana iika idinku khayrka badan haye cudhay kiina xooga weyn qawiga agtiina aniga agtayda waa daciif ilaa aan xaqa kasoo dhicinayo kiina daciifkaana agtayda waa qawi ilaa aan xaqiisa usoo dhicinayo allahu akbar kadib wuxuu dhahay aljihaadu fiikum maadaamat alumma jihaadka ku dadaala inta ay ummaddu jirto sabab muxuu jihaadka ugu soo khatimayaa khudbadiisa abubakar radiallahu canhu sababtoo ah nebiga sal alla alay wasalam noloshiisu waxay ku badbaadsanayd safe ay ku ahayd jihaadkaas ayuu ahaa sabab kale haddaan idiin sheego adduunka xilligaas ilaa hadda dadku way is addoonsadaan waa la is addoonsanayay soo ummadda muslimka yani iminka muslimiinta waxaa la dhahaa jihaadku waa saana allahu akbar boom dadka wax foolxun looga dhigaa ma aha wax foolxun ma aha waa lafdhabarta diinta islam waa lafdhabarta ummadda sababtan idiin sheegaya sababtoo ah adduunka waa la is addoonsadaa dad baa dad addoonsadaa soo dadka is addoonsigaas ayaan anagu u jihaadaynaa si dadku allah ay addoommo ugu noqdaan oo xaqii ilaahay aan allah usoo dhicino dadkuna aynan is addoonsanin dadku ay xor wada noqdaan allah keliyatana addoomma loo noqdo jihaad sababta loo jihaadaa xaqii ilaahay baa lasoo dhicinaya xaqii ilaahay lahaa oy dad kala qaateen baa laga soo dhicinaya aan leenahay annaga ilaahay jecel annaga ayaa ah ciidankii allah ee dhulka u joogay annaga ayaana xaqa allah soo dhicinayna allahna subxaanahu watacaala uu garab buu nagu siinayaa sidaa awgeed ummadda muslimiinta waxay jihaadka u galaan xaqullah ayay soo dhicinayaanoo yani dadku way is addoonsanayaan shaydaan bay qaar addoon u noqdeen dad baa magaranaysaa lacaga la siiyayo raabaro soo jilo oo soo sameeyo oo filimaan soo jilo oo heeso soo qaado oo yani filimaan soo jilo waxaasoo dhan ama kuwa soo turjuma ama waxaasoo dhan ama habla yaryaroo magaranaysaa shaydaan addoonsado ama shaydaan insina uu yahay jinna uu yahay waxaas is addoonsigaas aadka u foosha xun ma raba inaan dhex gale ayaa ummadda muslimiintu waxay u jihaadaan in xaqa ilaahay ee dadku qaateen laga soo siibo oo allah addoommo loo wada noqdo xaqii ilaahay loo soo dhiciyo marka jihaadku waa sababtaas waxaa kale oo abubakar u leeyahay hala jihaado sababtoo ah dee addoonsigaas ayaa lagu jiraa ummado badan baa la rabaa in la xoreeyo wadamo badan baa la rabaa in la furto diinta islaamkan in la geeyo in kalimatullahi hiya alculyaha laga dhaweeyo kelimadda ilaahay inay noqoto ta sarraysa in la xaqiijiyo awgeed ayaa jihaadka loo galaa laba nin ayaa abubakar u yimaaday waxay ku dhaheen nebigu sal alla alay slam almu'allafati quluubihim waxa uu siin jiray dhulal iyo waxyaabahaas waxaan u baahnay inaad dhulna siiso saasaabuu ku dhahay abubakar haa dib buu u fadhiistay saas ahaa waayahay waraaq buu soo qaaday wuxuu dhahay dhulkaa iyo dhulkaa iyo dhulkaas idinka ayaa iskale anna waan idiin saxiixay laakiin bishart oo cumar ula taga cumar ha idiin saxiixo cumarna ma kaftamo cumar radiallahu canhu ma kaftan ma yaqaano ninkaas cumar bay u yimaadeen waxay ku dhaheen abubakar ayaan dhul weydiisanay isaguna wuu noo saxeexay laakiin wuxuu nagu dhahay bishart inuu cumar idiin saxeexa ayaad dhulkaas ku qaadanaysaan waatan warqaddii iyo saxeex wuu ka qaaday warqaddii nin buu u diray abubakar uu ku dhahay u tago waxaad ku dhahdaa nebigu sal alla alay wasalam waxa uu yani ummadda yani dhulalka u siin jiray markaas islaamku daciif ayuu ahaa laakiin hadda oo yani dad buu u baahnaa islaamku markaa daciif ayuu ahaa laakiin hadda islaamku qawi ayuu noqday dad uma baahnaa iminka islaamku lugihiisa ayuu ku istaagay sidaa awgeed cid aan dhul siinayna ama waxaasi ma jirayso saa ula soco abubakaro ninkii abubakar buu tegay uu sheegay nimankii uu ka qaaday warqaddii cumar magacii abubakar meeshuu ku qornaa
وكترتري إيه صحيح يسي احترام أبو بكر احترامه ورقدينا وجعجعين روح قرفتي تجابو كله سكسر nimanka iyo xanaaqsan baa Abubakar u yimaado waxay rabaan Abubakar iyo Umar inay madaxa isku daraan xaaladda Abubakar iyo Umar ee aadka u quruxda badan iyo isjacaylka iyo kala dambeynta iyo yani wada tashiga ku dhisan ayay rabaan inay dhexdooda xaaladda quruxda badan jeexjeexaan Abubakar bi yimaadeen markaas uu yiraahdo Abubakar ha ninkan aad amarka siisaad ku tiri u saxeed dadka dhulka ha qaataane ma isaga ku taliya mise ada u taliya markaasuu ku dhahay isaga ii taliya hadduu doono huwa insha isaga ay taliya hadduu doono wuxuu uga Abubakar isaga madaxweynaha wuxuu uga tanaasulayaa Umar in uu waxyaabaha qaar amarka Umar baytulmaalka ayuu ka ahaa madax bangiga muslimiinta ayuu madax ka ahaa laakiinse wuxuu uga tanaasulayaa Abubakar hani si ma garanaysaa dawladdu u dhisnaato si ma garanaysaa khalkhal iyo waxyaabahaas loo soo gelin ummadda muslimiinta dhexdooda nimankana waxaa ma fahansana aqliga Abubakar iyo xigmadiisa ayaana arinta sababaysa so Abubakar nimankii wuxuu ku dhahay isaga ayaa imaamulo hadii uu doono maanta adduunka yani kameel yar maamulo ka ah ka hooseeyo madaxa kaga istaagsan yahay soo sheegay waxa laga yaabaa inuu adoonsado kan maamulaha ah madaxa lagaga soo taagan yahay kuwa ka hooseeyo isna madaxa kaga sii istaagaya waxa la rabay in ummadda la xoreeyo sababta loo rabay in ummadda loo xoreeyo sababta waa is adoonsiga dadku dhexdooda is adoonsanayaan naxariista Ilaahay oo kale ma jirayso naxariista Ilaahay waxay jirtaa in qofka Allah kaliya ta adoon u ah ayaa naxariis qalbigiisa ay galaysaa laakiin qofka adoon kale adoonsanayo buuq lagu soo furayo amar uuna rabin ma garanaysaa lagu qasbayo qofkii tashwiish baa ku furmaya buuq baa ku furmaya maamulo marka lagaaga dhigana madaxu kaaga sii istaagaya لأن سجوا ميد بمدح كجسوا تاجنا أما شيطان أما إنسي أما الجنية أي مدح كجسوا تاجنا مركا يعني وحنا لا يدك مدح ذا أما جوري معمولها كا يعني نينك كا حاس يا عروتي سوى حصلنا هوس إيمانيا أما معلن كا معمولها شقة ماشي شقة قف معمولها يعني وحنا لا هي حضارة الإسلام كمسلمين توحى صومرت هير يعني قضية حكم كلوكالة تنازلي حضارة دا سيانا صومرتي حاد مركا إيدنكو هالكيد جوكتان مركا قضية حكم كلوكالة تنازلي إنكو مالير مامل كاهيا أما قوري يرى أما سكول يرى أما سيايا دادك مقارنة ساوى عبرين نيسان مدح وغي استاقيسان أمريكينون إلا قاتا أضربتا وحينون إلا سعودان ربتا لا دادك عبرينينا حضارة الإسلام كا برتا أو كل رغم إلهنا سبحانه وتعالى هينا وضوافته سؤال ينويدين يا سؤال شيء ذو حويان أبو بكر مركي اللي طورتي ضد بدن بالردوبي يعني الردوبي محن كوضا دينتي كان نقدين هدي أي جيران هوستا تذكاسين الردوبين إنك لاد أكتهين هوستا كسو حريق وكومنتيغا هدي أينا جيرينا بلان صوبا ردوناو كده بتيجي دونايو موقالك كوحيغا أيان سيب بالبلاران توشكو وقابن دونا وإفتيمين دونا وكلا فائدي دونا إذن كانوا حيث كعصريات تاقرات كل دوانين يدانيكي لاوين لايك سابسكرايب يوحي لاميد كاينة الشير قريسان ويوحي يتوسيسا ويديري قلنيسا وحينا يتوسيسا إن أنكو صعدو هاوشن آنوضو هرو صدق سيري النبي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين ما أنت الليل كاي قدن سنة سيدا ويباوتشي مقدي يا باس لوغار يقول قاتا كده نقول مقدي ميهي أوه دوي رصد إلهي درتي ويديش على وركس ديران دول عدي وقرح بدو تجينكم بيراج على هاي والله إلهي درتي ويديش على هاي إلهي رواك مرخاتي رصدك سلي نبيك حلقة يدين تحيا نوري أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته